kulankan lagu taageereeyay howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan gobolka Banaadir iyo qayb ka mid ah gobolada dalka kaasi oo lagu sugayo ammaanka guud ee dalka isla markaana loogu saarayo meelaha ay ugu dhuumaalaysanayaan dalka maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo uu soo qaban qaabiyay maamulka degmada Kaaraan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ujeedada kulanka ayaa ahaa sidii loo taageeri lahaa horumarka nabadda iyo sidii loo garab istaagi lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgallo amniga lagu sugayo ka wada guud ahaan dalka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa ka hadashay ujeedada kulanka iyo doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin difaaca dalka marka hore inaan u hambalyeeyno taageero aan la garab istaagno ciidamada qalabka sida ee ciidanka danab amase iyo kuwa 14 Oktoobar oo jiida hore ku baacsanaya cadawga inaan dhaano ciidankeena waa idinka fognahay waa idin la joognaa nooma jeedaan laakiin anagu waan idin jeednaa waxaad u dhimanaysaan hooyo waa qarannimada gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Cabdi Fataax Nuur Cali Yaayo ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Kaaraan ay u diyaar yihiin in la shaqeeyaan ciidamada ammaanka oo mahad celeynaa ciidanka geesiyaasha ee hari habeen u taagan badbaadada shacabka sidoo kale waxaan ka warqabnaa in magaalada ay ka bilaabatay baaritaan annaga ka reer Kaaraan waxaan rabnaa inaan booliiska u furno albaabadeena iyo qalbiyadeyna inaan cadawga nagu dhex jiro iska qabanno inaan ka shaqeyno badbaadada shacabka inaan kala shaqeyno booliiska dhanka kale maamulka degmada Kaaraan ayaa tababar ku saabsan barashada harqaanka iyo farshaxanka ugu furay haweenka ku nool degmada Kaaraan taasi oo ah shaqo abuur loogu sameynayo haweenka Soomaaliyeed gudoomiyaha ururka haweenka degmada Kaaraan ee gobolkan Banaadir Suldaano Axmed Maxamed ayaa ka warbixisay ujeedada tababarka harqaamankii oo la furaayo iyo farshaxankii waxa harqaamankaas maarata gacan nagu siiyay gudoomiyaha ayaa keentay harqaamanka wayna ku mahadsan tahay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa ka hadashay muhiimadda tababarkan uu leeyahay haweenka Soomaaliyeed gabar wax la baray waa qaran wax la baray ama bulsho wax baratay marka in gabdhaha la baawar gareeyo adduunka hadda waxay sameeyaan wax la dhaho women empowerment awoodsiinta gabdhaha waxaan rabnaa inaan ugu baaqno cid walba oo gabdhaha ka caawin karto farshaxanka wada aragteen waxay soo saarayaan maamulka gobolka Banaadir ayaa wada dadaalo ku aadan dadaalo iyo mashaariic lagu horumarinayo haweenka Soomaaliyeed Muuse Cismaan Abtoow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho